بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا channel كين عمران موبيل تج iyo muuqaal cusub waxaad ku baran doontaan videogan aan idinku soo gudbinaynaa telefoonkan hadda aad u jeedaan waa F13 wuxuu ka ciidaysan yahay shaashada LCD-ga oo la bedelayo iyo wuxuu kaloo ka helaysan yahay ma soo gudbinayo leerka display-ga aragtida soo gudbin lahaa leerka uu ka guban yahay waxaan bedelaynaa kabaasidada soo gudbiya leerarka waad nala arkaysaan cilada sida loo cilad bixinayo waxaad ku dhamaysan doontaan videogan sida loo bedelo shaashada iyo haddii aragtida telefoonka uu leeyahay sida loo xaliyo kabaasidada loo bedelo oo loo ogaado inay cilad leeyihiin iyo inay wadooyinka qaar ay go'an yihiin waxaad ku baran doontaan isla videogan muuqaalka intuu yar oo socdo ha ku caajisin laakiin waxaad wax badan oo ka faa'iideysaa waxa kale oo aad ka faa'iideysaa laba arrinba meeshan way ku jirtaa labada arrin aad ka faa'iideyso waxay ka mid tahay haddaadan aqoonin sida shaashada loo bedelo waxaa ku jirta videogan shaashada sida loo bedelo waxaa kaloo ku jirta leerka AC-ga sida maqan sida loo xaliyo intaba videogan ayaad ku daawan doontaan hadda waxaan tijaabinaynaa LCD-ga intaadan koolada aadhe ka fiiqin shaashada iska tijaabi sida cilada haddii cilad yeelato aad u celin karto laakiin mar haddaad kooleyso shaashada cidna kaama celinayso laakiin intaada kooleenin iska tijaabi hadda AC-ga waa guban yahay leerka soo gudbin lahaa marka kabaasidka ayaan ka bedelaynaa marka hore kabaasidka marka aan bedelno kabaasidada iyo AC-gana waxaad ka heli kartaan isla motorada kale oo spare partska ee ku yaala ama aad heli karto ayaad kala soo degaysaa kabaasidkaas hadda ka dejinay kabaasidkaas meesha laga dejiyay wuxuu u dhigmaa fuse wuxuu gudbiyaa AC-ga wada ka soo baxda iyo shaashada ayuu isku xiraa wuxuu u dhigmaa macnaa fuse-kaas gubtay qarxay kabaasida oo dhinaciisa ku yaalna badan way gubtaa ayagana waa bedelaynaa waad arkaysaa video waad ku arkaysaa sida aad u jeedaan shaashada marka kabaasidkaas markaan bedelno telefoonka intuu ka qaboowayo sug motorka intuu ka qaboowayo sug markuu qaboobo waa kaas saddexdaas shay ayaan ka bedelnay marka jaajarka geli ayar waa kaas soo shidmay hadda marka shaashadaada waad baroobeysan kartaa intaadan dejinin ayaad iska baroobeynaysaa waa kaa shaqaysay hadda kadib marka ayaad u tabaalanaysaa inaad kooladii iyo aad ku dejiso shaashada way ku shaqaysay shaashadaas haddaysan ku shaqaynin waxaad lagaaga celin karaa inaada kooleen haddaa kooleysaday kaa gadan tahay khasaaraha adu labada dhinac kula kulmaa meeshaas yar aan sharootada ku dejinayo aad u jeedaan waxaan kala ilaalinayaa shoorka ka dhalan kara jaqafka motorka hoostiisa meeshaas aad u jeedaan iyo waxaa la kala ilaalinayaa kabaasidkii oo la bedelay shoorka markaad ka ilaalisid motorka aad xiratid labadan fiilo aad u jeedaan waxay xoojinayaan anteenada marka iska hubi inay ku xiran yihiin mararka qaar waxaa dhacda
inay ayagoo ka baxsanaa telefoonka iska xirxirtid. Qofka intuu magaalada joogo anteenadiisu waa okay nadiif, markuu xaafadiisii tago wuxuu dareemaa anteen xumo. marka shaqadaada kugu soo laabatana waxa waaday ku sharaf xumo kugu tahay. marka intaadan wax xirxirin iska tijaabi, oo marka iska tijaabisid oo wax walba okay maskaxdaada joogto, wax walba aad xirxirtid, shaashadaada soo qabso. midda kale shaashadaha dhinacaas koolaha ka maraynin. koolada waxaad marsataa qeybahaas oo kale, marka iska marisid in yar ku leersato koolada wax yar iska dhig, kadibna qeybta keebalka shaashada oo keebalka xagga meesha mara lahayd meesha iska mari. xagga hadaa marisid waa shaashadaas inay ku deysaa macquul oo macnaha ay danto. marka ayar deji mar walba shaashada intaadan fiiqin oo bacda ka fiiqin iska tijaabi. haday xumaato macaamiil waxay meesha ka soo gadeed ku celinaysa. laakiin shaashada diig ay ka xumaato aadan kooladaada ay ku marsan tahay, aday ku taala shaashaduna aday ka gadan tahay. ninkii macaamilkana wuxuu ka rabaa shaashad fiican kulay, khasaaraha adag ku soo gaaray. marka khasaaraha intii ku soo gaarin ka hor ka digtoonow, la soco adoo khasaaraha ka fikiraya. marka iska ilaali yeesan kugu soo noqon telefoonka aad sameysay weliga iyo kugu soo noqon. macaamilkaas ha ku keeno telefoon kale, laakiin telefoonkii leh kugu soo noqnoqdo adna ceeb ay kugu tahay, shaqo xumana. lacagtaada ku ciyaar, laakiin shaqadaada ku ciyaarin oo iska hagaaji telefoonka si tartiib ah u feeray. waa telefoonka hadda ciladiisana uu ahaa leerka iyo qadoo la bedelayo. labada casharba waxaad ku barateen isla videoga. macallin weyn miye, laakiin waxa idin dhaama waa idin soo gudbinaya insha Allah. idinkuna ha ilaabina sheertii, like-ta iyo kumatiga ka faalooda. sidaa nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.